gado oo beesha Mareexaan ee gobolka Gada degan guud ahaanba way u qoosgooyeen maantay damacyadii ninkii la soo diray ee Fartaag ee la yiraahdo guriga hooyada dabka ku soo qabo markii uu fashilmay qorshihii Xamse qoriga dabka inta loogu dhiibay la yiri orada Raskaamboni soo gub fashil jab iyo naasabeel ayuu ku soo dhamaaday waxaan idin ka codsanayaa fariintaydan in aad Fartaag gaarsiisaan qofkii aqli leh arrintan uu dhuuxo ninkii ugu horeeyay Mareexaan oo gobolka Gada ka soo jeedo Mareexaanka galgaduud degan waqooyiga galgaduud gabar xildhibaanada ra'iisul qoraal dhaho halkan aan ka salaamayo oo rag roori samaysay baaba joogto wixii madaqana qalad dadkaas laga galo ama shaati dawladda lagu dulmiyo u taagan difaaceede ninkii ugu horeeyay ee Mareexaankaas Gada degan dantooda ka hadla maadaama gobolkan dawladda federaalka uu hoostagay xilligii madaxweyne Farmaajo oo Jubbaland dawladdii nabadii nolol ka goysay wuxuu tagay baarlamaanka wuxuu yiri madaxweyne Xasan iyo dawladdu iyo wasiiradu waxaan idin ka codsanaynaa maanta in kabka miisaaniyadeed ee laga helo caalamka oo haddaba ciidamada meelahaas loo xawilayo la siiyo laba diyaaradood oo ciidan ah ilaa 4 diyaaradood 5 diyaaradood howlgal maanta la sameeyo meel la geeyay lacagta ku baxaysa buundooyinkaas gobolka Gado in la dhiso baan idin ka codsanaa baarlamaanku koori maxaa loogu jawaabay ajuuskii 9 jirkii Muuse Suudi ee qabyaaladu dilootay ninkaas ma codsan canshuurta gobolka Banaadir Muuse Suudi wuxuu aaminsan yahay in kabka miisaaniyadeed ee caalamku ay dawladda federaalka ku taageerayso in hawiye leeyahay Muqdisho ay ka soo baxdo aaminsan yahay aqligaas aaminsan yahay inta soo istaagay markuu ninkii intaas yiri buu wuxuu yiri sida tan ila ark ilaa badan ku dhaashay ila ark Fartaag muuqaalkan tusa bas waa gobolka hadda la yiri dabka soo qoysay uu ka soo jeedo intana loogu jawaabay markuu yiri war madaxweyne iyo wasiirada war dawladda kabka miisaaniyadeed $500,000 baa ku filan bas buundooyinkaasi hana lagu taageero hana lagu caawo sana loogu jawaabay ilaa badan ku dhaashay sina gobolay maaha niman gobolkiisa canshuur laga qaaday canshuur gobol kale laga qaaday in la siiyo hadduu rabo aniga waxaan qabaa inay ama tahay aqli daro ama ay tahay dulmi oo dad loogu talagalay diyaad mar xasan hadduu dan Mareexaan ka shaqeynayo Fartaagow wax kale kuma weydiinayna intaas horge wiilkaas xildhibaanka inta uu weydiiyay ee Muuse Suudi jawaabta uga dhiga canshuurteena gobol kale ma cunayo war canshuurta aad leedahay Muusow ajuuskiyo 9 jirka ma soo dhaaftaba laamaha ammaanka booliska iyo checkpointyada inta ku bad canshuurta Muqdisho laga qaado ma soo dhaaftaba tan tagadiyo garoonka Turki baa gacanta ku haya iyagaaba goostaba ciidamada checkpointyada jooga iyo shaqaalaha dawladda ka shaqeynaya xafiisadina oo xaq ay u lahayd inaad idinku ma taqaanay siisaan waayo dawladdu meesha indheedu waa Muqdisho waana ku qasban tahay adaa ammaankaaga lagu ilaalinaya adaa hawsha lagu kala fududeynaya ma soo dhaaftaba lacagaha uu xildhibaanku codsaday ma ahan lacag canshuur laga qaaday Muqdisho hawiyana canshuurta Muqdisho laga qaado percentage ma dhama in Soomaalida kale inta laga qaado ka badan kaama codsana ka miisaaniyada dhaqaalaha la sheegay Fartaag markii waxaan leenahay inta xildhibaankaas uu weydiiyay Muuse Suudi Xasan ka keen hadda qarashka ku baxay ciidanka la keenayo gobolka Gada kaliya shuruud wado hatta ninka ragga ah haddaan maanta rabo inaan deegaankayga hawl uga dhameeyo Xasan raganimo anigu barihibiya ma oran kara miyaa madaxweyne hawshaada waan ku fudleeyaa maxaa dan dadkayga u ah Fartaago gobolka Gada oo dhan way ku raacayaan oo ay ku dabagalayaan buundooyinka burbursan Xasan hadhiso shuruud uga dhig عقبات وقدك وقدك والله وبالله وطلع يبسن كايلي سيدي قلب كيف أنت لقوا استعمال سيدي حمسة وكله بعدين شقة توجه لقوا قسمني حمسة مي ورسو نين كهذا ما تقرنا حكومة دي ساعات كتير سنتي بين أوركا ورسو مي هل كده مي شقة توجه لقوا قسمني نينكي دون تاسا سومالي ما أنتوا دي ما يسوي لي بدت كان هرجلات أي لا دكسنية
ninkii ugu badnaa ee xasan difaacay ugu badnaa ee ma taqaana intaas u dhimanaya ilaa shanaya mushaarkiisa inuu iska galo keen ninkii xawaalle wasaaradda batroolka joogay buu xalay meeshu ku dambeeyna waadabay waa ninkii iyadoo la leeyahay warshadaalka Soomaaliya aqli ma ahna waa xal wada qaybsaday yiri Puntland iyo dawladda federaalku dani baa nagu taagano dani iyo xasan sheekh maxamed arrimada shaqsiga isku haya ninkii yiri dani bay wax walba ka dhaqaaqay ninkii yiri xalayna waa la ciish fiya maxaa la isku fahmi waayay xogaa lacag oo ma taqaanay shidaalkii waxaas bal isku fahmay waa la ciish baxbali markaas yiri anigii xasan waxaan ku kala tagnay arriba hiiraan ma wax u qabat intaas jara hiiraan dhibaato ka taagneed kan xawaalo taxi driverkiisa kanadu ku laabtay waa loo soo shaqo tagay wadanka xasan hawiyo aqli wada xasan hawiyo haduu aqli oo baabila barakicin laha maxaa ka soo qof hawiye maya xasan hawiyana dan uma hayo inta wax magaradka ee hawiyenimo in lagu dulmiyo dad loogu awrkacsanayo ayuu dhagaha ugu shubay markasta oo xasan runta loo sheego waxa la diiday in nin hawiye oo madaxweyne noqdo sheekh shariif madaxweyne noqday aadan cabdullaah cismaan yaa ka sumcad badna sheekh shariif yaa ka sumcad badna ay hadii lagu dhawl walaalo xasan oo jooji gondobkan aad u tahay aan ma taqaanay wiilkan yar ee Ismaaciil Cumar Geelle wiilkiisa bahdiisa oo aad kala u xurub suurab kugu adeeganayo bahdiisa yar aad u tahay jooji oo dalbad madaxweyne ku tahay Soomaaliya inaad madaxweyne u tahay aamin oo inaadan ahayn wakiil Ismaaciil u soo magacawday Soomaaliya aamin diidan hawiyadan wada hawiyadan fartaag intaas gaarsiya markaan ogaanay aan leeyahay gobonimo Axmed Madoobe haduu xun yahay iyo haduu san yahayba duulaanku ma ahan Jubbaland gado duulaanku ma ahan حتى هدا تبى شقبتان بل برنامج كاسو إذا كتاجنا حتى هدا تبى شقبتان برنامج كاسو إذا كتاجنا مريحان قبل كذا واحد ليه لما يودنتينا أقوى صدا دنتينا أقوى صدا ور حتى فرتاق ما أقوى واي هاش حسن يكوعدي سوى يجا ساس عن شروط يلا مصر النجدة وأيه مسبح هلك مسسود هلك سوت تاجني هاي أولي مسسود يشيلها محمد وصابح سوى قبيل فرماتش مريحان محمد وصابح صابح ما ما أنت نينكي مريحان نينكي معارضة كوها باش هدي قبيل لو رجع موسى قبيل أرجع سيكون راعي كرانو مريحان وقبل كذا أمر نينكي مريحان الشيء مدعتوي كجري أو الدنيا دكش غيري نينكي أضيق هي عجوز كانت تسقى عشان جلك هالكاوي يستغير محمد وصابح فرماجة ومريحان وعلو كنت شوية موسى سعود أفكي سال لقاها موسى قاين كيس كم تناسلين موسى سعودي قاين كيس كم تناسلين قاين كيس عقدة أولي وكنت تاجي واسقى هالكاس لا تاجن شلينا محمد وصابح كوي ما أنت سيجا داعينا مركز أظن المريحانة أنت قبل كي قدرت تقول سوق سيجا داعينا وما تدها اللي ودل تكلم وأنت سكون مريحانة بركة سيجا داعينا نين كمرنا لها محمد وصابح وفرماتش ومريحان مرنا عن شروط إذا قدر لما سينا ينتلي بندوين كاس لابس وعقل وهاش غيو مريحان قبل كي قدر وعقل وهاش غيو نمان قدبتي صدونان كرين سو قبل ما أهل وبيدين قدبيسن يهاي بحسن حسن بيدين كيدين قدبيسن سومالي هذول إذا ولطوا إذا تاجرتن نينك قبيلة هالكاس لسه تاج فرحانة وجوج يقالوا له وقال يا هذا يو ويلكي يو شنرارو كوي يسقوها قبيلة ده ماشي لتاجنا السجى بيدين قدبيسن سمرك كاجنا دعنا مرك فرتاج واحد كلا كمرة بنا هقول قالك وبربرينا أحمد مذهب كسمايان دولان كو قادينا فرتاغو adaan ku daba faylayna adaa laan dheeraheeniya waxba nooga soo qaad sheega lacagta handa bundooyinkaas aan dhisnaa inta bas wax kale ka marabno bundooyinka gobolka gadan dhisnaa bas way lacagti hadda raskan bari ku baxay in la mid ah ku baxaysa iyadana laakiin si qori dab lehna lacag aan ku bixinaya in dadkaygu noolaadaan lacag ku bixin mayo walaal waxaas ma shaqeynayso fartaag intaas aanu kaarna kuma caayina wiilkeeni ma tahay intaas xasan nooga keen ودنيادي doorashooyin dad ka shaqeynaysid intaas bas nooga keen illa lacagta hadda hawlgalka ku baxaysa waa la mid mar walba lacag waa bixi lahay intaas car nooga keen ma keeka keenin karo waa la cayrinaya bax baa la dhahaya marka waa inuu gondob noqdo weeyo gondob waa inuu noqdo war intaas aan ku soo gufanayaa waxaan leeyahay dadkan 34 sano kadib Soomaaliya meel xun bay maraysaa maalin walba waxa la lahaa ka soo horeysay ma dhicin qoyi qabyaalada meesha la taagnaayo hawiye ninkii daarood mucaaradka ku ahaa farmaajo
بانو نور هذا يدنكو حل كينيسان هويو ولي برق دارو ذا معارضكو أفرماجو بالو كلاري تدوان شو عاف ماذا بل هوية وكان يلو ريقا ميش حسن هوية ما متري مركان ساس ليه هوية واهيب أهان وادو قيدين وحو كل يقضي وحو سفينه وجدان سوماليا ميش يقول حمايد بيسي مريسا إلا كلا قرطه أو دبدم اللي سكوا مين ويسي مريسا حال مركا كنت لنا يا نتكا أيسان ميش تلا أولين ودارودي حتى الشرطة هلا تشرطوا اسمين ولنا هاي وحقرت بينو لنا هاي هلا تشرطوا ماشان كنتم سنة ودن دولة هذا الدنيا ما دعضو إيه هلا يسقي ماذا هلا تشرب سومالي ذا سكلنا أن أمان سينو هنجا أمان قش عندي أنا نسوى الدنا ونسكن علينا الدنيا ذا سين ولما عامل الله يديك أنا ذا كل سلهين الما ذا الرجال وهلا قتلي وعي هراء دن نباتين نعمرتي دع حلا دلين تلا جن نقضوا ولا يسقي ماذا هلا تشرب نما يوم وهذا تلا ربط سومالي ذا كلا تلا ميل وأطلعه وحنا تاس عدين كوجو فلان ضد كد ودنيادو يسمى لماذا كجو أنت إذن كاجر وحقيقة ذوي إذن كاجر ما تشري سنة ما يوم مسوي إسكندر ما يريسان سنة ما أنت أنا جالس يزداد مركان هالكاز زداد ما أنت وأنا جوسن كرنا سدي إساقة كله كم نان عيدنا أنت سواك حين ما ننشي من نرجع حسدي محاكمت حمر الدولة ما ننجين ما ولا شيء إسكاي سنة معود منني أنت سنود منني وحين فايدة اللي جواه عشر وي خبرت بين نوتاي دن ما تشنا ورملا تشنا نميو بندوين كنا ما دسنا ودوين كنا ما دسنا أدوك ملا معابل هذا شيء دان قيساس كان عماني كله واريره بالريره أهل السعودي عماني كويتي قذف وأنا ودمه أنا أقول لك بحد لو أنت أصلا معدن يا قدار يا ما تغنى بريجو يا واحد البلهبان واللي بحدودان كلها حدوده أنت سودنا حدود لا هلا تشنا وأودينا قال لنا كقرية هلا تشنا Soomaalida kale ma rabaan dawladnimo wanaag dhamaa wax walba dhamaad xumaan ba socoto hal la isku yimaado deegaanadan kulli hal la tashado intaasan ku soo